afarta mission ee soo qabtaan ku sheegay mid waa hooyadii aabahey aan kala furay ma adigu aniga kula hadlayo hortaada fadhiyo maxaad u yeeshay hadii waa sharci bari kama la eega isfur lahayn laakiin hadda koobka dahabkan ku qaataba sidaas aad gudoomiye la dhiga saas baa gudoomiye la dhigo caleemaha la igu dadso gudoomiyaha iskaabulada la igu canashada dadka qaar buu waxyaalo ma lahayn looga calafsho السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشينا شرفت له وان سلامينا كسو دوادا برنامج جوني او مانتا aan ku wareysanayno gudoomiyaha iskaabulada ee magaalada Gaarisa gudoomiye kusoo dhawaw barnaamijka magacaaga hadii aad ku bilowdo iyo waliba taariikhdaada oo kooban horta aad aad u maasan tahay mudane wariye horta magacaygu waxa la yiraahdaa qasafa waxaan halkan u fadhiyaa aan ahay gudoomiyaha iskaabulada gobolkan waqooyi bari gaar ahaan magaalada Gaarisa horta anigoo taariikhdeeda ku bilaabayo waxaan soo qabtay xilal fara badan waxaan afar mar aan xil ka soo qabtay xil kala furid ah oo la kala furayo dumar la guursaday maadaama kadib markii ay qiimo dhimis ku imaatay ama hoos u dhac ku yimid tirada aniga noo diiwaan gelisaneed ee iskaabulada waxa si hadda aan ku rajo weynahay in aan xilalka iyo wax ka badan aan qabto waxaan kaloo aan mar la ii doortay oo la ii magacaabay in aan ahay iskaabulihii ugu wanaagsanaa magaalada Gaarisa waa tahay mudane maadaama aad sheegtay in lagu doortay afar xil xilkan ugu hore oo hadda kugu dambeeyo aad hayso oo ah gudoomiyaha iskaabulada goormeel laga dhigay waxa la iga dhigay hadda waa sanadkii ugu horeeyay baan ku jirnaa 4 sano hadda way ii dhiman tahay horaan yaa u sii hayay marka booska hadda aad ku jirto horaan waagii la asaasay iskaabulo ilaa hadda anun baa iskaga soo ceeshanay waxay ma laha miya maadaama adiga hadda lagu doortay inaad tahay gudoomiyaha midka ugu fiican iskaabulada jagada adiga dartaa u soo baxdayba aniga darteeda u soo baxdaba waa tahay anaba ii doortaba jagadan ba naftirkeeda waa jaga aan la imid ba marka adduunka imid waa tahay maadaama magaalada Gaarisa ay caan ku tahay sabti axad inay aroosi aad u far badan ay dhacaan dhabar jibin ma nigu tahay marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta labadaas maalin bas inay nooga ekaadaan laakiin maalmaha bisha holidayda ee dadka holiday ay ku jiraan horta dhabarjab aad iyo aad weyn baa la kulanaa waayo hadda laba maalin isbuuciya qaadanaya laakiin toddobada maalin buu is aroosayaan maalmahaas waa dhabarjab aad iyo aad u weyn liisas hadda holidayda hadda aan soo dhaafnay liis waxaa ii soo xarootay 1,005 qof inay ka baxday iskaabulanimo ay isguursadeen waa tahay magaalada Gaarisa aad iyo aad u weyn tahay iskaabulada ku kooban magaalada Gaarisa oo ka tirsan dhamaantood ما نحسب سنتها ونحسب سنتها حتى هذه قيمة هصدع وكل ما ضاء إسكابولا مجال جالسة وحن أنا نعيش كونتراكت سياق على غير إسكابولا سيدت كيس خبأ يوسف كالفران نفتر كذا هرمر أنا قاعد وقت قلت له شقاء في عنا هيسا لنا عدلوا في رينا وشقاء معانا وسلام مركز أنا حتى عن قبل كرن أذيك نفس الشركة سؤال أقول أذيك نفس الشركة ساتا إسكابولا متي وحن كل جوينا نفس الشركة اللي إسكابولا دينا نكود بارك فرحت أدي أدوين أدكو أجد إنه حاس قبو أو أد سكابولا كسر دقيقة فرحت أدي أدوين وأسلق من هذيك سكابولا اللي ماذا لسه الأرك واتاي وحن كليه هاي ما دام أو ضد فربضن أي نجيب حان أسبوعية ولا السبت حدا ضدك الصهري مركا أو جروب كسهري أو سكابولا كسهري ما دير جلسان ودي رجلنا وحن كل رجلنا إن مركل الآن أرجنا قف شل اللي جرسده وما أنت لا صافري أما قف الجرسده اللي صافري نلاش الجور كإنه يهبل ما هو شجنابه واتا كتابة آخرنا مع الماء سرتي حتوان حرنا ما سيدتكو أركن مجال بالك بحسن بنجينا ودور بنا حرسن مجال بالك بحسن بنجينا وأن كسو آخرنا لما سكحوا كتابة وين أنا هنا بنكو آخرنا إن بين ويهجور كل شيء maadaama aad sheegtay in aad dad adeegsato oo dadka ay soo kala furaan markii qofkaas uu qof waliga ma dhacdo inuu qof uu soo kala furo laba isqabaan aniga diijid afar baan ku guuleystay afar mission baan ku guuleystay marka abaalmarin ma la bixiyaa abaalmarin darajada in hadda gudoomiyenimo waxa kor lagu qaadaba waa kala furitaanka dadkan kala furay waata aad ma ku rajaweynta marka inaad ku dhameysato iskaabula anigu aad baan ugu rajaweynahay marba haddii nolosha ninkii shalay guursaday xaaskiisa kala tagayaan iskaabulinimada ka macaan waayo iskaabulinimada maxaad ugu jisaaraysaa waa kusoo kortay waad kusoo weynaatay bal ma iyada iskaga joogtid maxaa ku waalay waa tahay mudane gudoomiye waxaan ku weydiinayaa maadaama diinta ay dhahday guurka waa barako horta ma ogtiin guurka inuu barakiya
waan ognahay iskaabulada sarkiin waan ognahay mida afar waliba in loo baneeyo waan ognahay marka maxaad u diideen marka inaad guursatiin su'aal aan ku weydiiyo iskaabulada xaraan weeye meel ay diinta uga qoran tahay ma jirto laakiinse aan ku weydiiyo gabar 15 jir ah oo garooba xaggee diinta looga qoray dee idinka ka soo furteen maya anagu maana furin anaga haddaan iskaabulada waxaan ku doodaynaa gabdhaha mustaqbalkooda inaan lagu ciyaarin oo iskaabulanimo ay ku dhamaystaan inaguna gabdhaha dee aan mustaqbalkooda ayagoo gabdhaha aan guursanno gorob aanan ka dhigin mustaqbalkooda aanan ku ciyaarin qof waliba noloshiisa ha ku joogo nolol ha ku faraxsanaado kuwa isguursanaya xataa inay aabahii iyo hooyadii aan kala furay marka maadaama aad sheegtay iskaabulada inaad ku faraxsantihiin koobka dabaaldeg ma qabatiin 4 mishin aan soo qabtaan ku sheegay mid waa hooyadii iyo aabahii inaan kala furay ma adigu aniga kula hadlayo hortaada fadhiyo maxaad u yeeshay haddii waa sharci beri kamaa la eega isfuri lahayn laakiin hadda koobka dahabkan ku qaataba sidaasaaba guddoomiye laga dhigay saas baaba guddoomiye la dhigo caleemaha la iigu dadsho guddoomiyaha iskaabulada la iigu canashada dadka qaar ba waxyaalo maalaa yacni looga caleemshuba guddoomiye waad ku mahadsan tahay maadaama wax fara badan oo calool xanuun la idin sheegtay intaas iga jooji wax ka badan ma dhegeysan karo waa inaad dhimaataa sabti axad meesha dadka kitaabadan u akhriyo calool xumada aad sheegaysa inay calool wanaagtaad ogaanaysa maya meesha ma imaan karo waa hagaag aad meesha haddaan imaadan waa nin wacdani waa hagaag aad kulligiin waa guursanaysiin wacdiga waxaa u baahan kuwa gabdhaha 15 sano furayo waa tahay